السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الرشيد محمد oo halkaan idinka salaamaya dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkan aan jecelahay inaan kaga hadlo 18ka Maajo ama 18ka May sida loo yaqaanaba maanta oo kale waxa laga xusaa gobolada waqooyi galbeed ee wadankeena Soomaaliya xus loogu magac daray goosashadii gobolada waqooyi galbeed la magac baxay Somaliland maanta oo kale waxa la yiraahdaa waa maalin aad iyo aad looga dhigo sidii maalin xorriyad la qaatay oo kale ah laakiin Soomaaliya waxay xorriyad qaadatay 1960kii 26 June haddaba maxaa keenay in la yiraahdo xorriyad ayaan dib u qaadanay oo waxaan la baxnay Somaliland runtii waxaan jeclahay inaan xaqiiqada sheego sida aad ogtihiinba wadanka Soomaaliya waxa haystay oo awood ku haystay awood ilaah baa leh Maxamed Siyaad Barre muddo 22 ilaa 21 sano ah Maxamed Siyaad Barre waxa uu sameeyay falal aad iyo aad u arxan daran aad u xanuun badan waxaan xasuustaa ama aan taariikhda ku haynaa duqeymo ba'an oo loo adeegsado hubka nuucyadiisa kala duwan iyo diyaaradaha dagaalka ah in loo geystay gobolada waqooyi galbeed ee wadankeena Soomaaliya dabayaaqadii 80-kii taasoo lagu laayay dad tiro badan oo Soomaaliyeed oo ah xubin kamid ah dhiigeena waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhacdadaasi dhacday balse su'aashu waxay tahay halkee ama qaabkee ayay ku timid ninkaas wuxuu ahaa nin Maxamed Siyaad Barre kaligii taliye ah oo amarkiisa ka soconayay inta badan wadanka Soomaaliya kaasoo rag la shaqeynayay asagaba ay u geysteen dhibaato dad Soomaaliyeed oo ku kala nool gobolada Soomaaliya dabayaaqadii 80-kii markii la duqeeyay meeshaasi gobolada waqooyi ma ahayn kaliya dhibka halka uu ka dhacay goboladaasi waqooyi waxa sidoo kale kufsi iyo dilal kala duwan iyo xasuuq iyo dhibaatadii tii ugu xumeed loo geystay sidoo kale Soomaali kale oo degta gobolada Soomaaliya ay kamid tahay gobolka Hiiraan gobolka Galgaduud banaadirta aan joogno waxa lagu laayay rag wadaada ah maalin farxad ah oo ciid ah sidoo kale dhibaatadaasi uu kaligii taliye Maxamed Siyaad Barre geystay aad bay u badneed balse su'aasha aan u soo noqday maxaa keenay in Soomaalida waqooyi galbeed ay goostaan oo magaalada Hargeysa maanta laga dhigo wadan kale oo caasimad u ah Somaliland runtii Somaliland waxa ay xorriyad qaadatay 26 June taas waxay ahayd markii gumeystaha reer Ingiriis ay ka qaateen xorriyadda 4 maalmood kadib 1 Luulyo waxa xorriyad qaatay sidoo kale koonfurta Soomaalida degta dabadeed waxa la sameeyay midow Soomaaliya waxa ay ka kooban tahay 5 sidaad ogtihiin oo qayb naga jirta Kenya NFD qaybta Ogaden gobolka Ogaadeniya iyo Djibouti oo idana Soomaali ah balse aan yaanan u gudbin warbixin kale aan u soo noqdo qodobka muhiimka ah maxaa keenay inay Soomaalidaas goosato oo ay tiraahdo maanta waxaan doonaynaa madax banaani oo aan ka madax banaanahay wadanka Soomaaliya runtii waxa waa wax loo garaabi karo oo loo dhihi karo waa xaq bay u leeyihiin maantana waxa ay gaareen horumar aad u ballaaran haddii ahaan lahayd dhismaha iyo ammaanka iyo howlaha dhan maxaa hayato dal lahaan karo balse aqoonsi ma aanay helin oo Soomaalideenan kalena ma jeclaysan doono inay helaan aqoonsi maxaa yeelay aqoonsi markii la siiyo waxay noqonaysaa albaab u furma Soomaalida kale waxa dhacay doonta in gobol walba ee Soomaaliya uu yiraahdo annagana waxaan doonaynaa
inaanu gooni u go'no taasina waxay ku tahay dabargo' weyn Soomaali weyn oo hadda ay ka maqan tahay NFD iyo Ogaden oo Ethiopia iyo Kenya ay hoos tagaan balse in la kala go'o ma ay wanaagsana runtii walaalaheena deega Somaliland Soomaali galbeed waxaan leeyahay runtii ha fiirinina dhibaatadii dhacday fiiriya sidoo kale ha noqonina nabar aniga igu yaalo nabarka aniga ayuu igu yaala hadihina waxa tirahdaa war sidee baa dhibaatada igu dhacday sidee baysa koonfurta dhibaatada ugu dhacday kaliya ma ahan dhibaatada waxay ku dhacday Soomaalida oo dhan ay dhibaatada ku dhacday hadii la dhihi lahaa laga soo bilaabo Ras Kamboni ilaa iyo Ras Casayl dhibaatada way wada saameysay kaliya talihiina dhibaatada meel walba ay ka gaarsiiyay wadankeena marka aanu xasuusano dhibaatadii dhacday kaliya ha fiirinina tiine fiiriya dhammaan Soomaalida la dhibaateeyay meel walba ay joogaan waxaana sidoo kale leeyahay Soomaalida koonfur degta ilaa iyo sanadadii ugu dambeysay hadii aan lahayd waxa ka taagnaa dhibaato muddadaas oo dhan dhibaatada waxay ku soo bilaabatay wax yar kadib duqeymihii loo geystay gobolada waqooyi galbeed ilaa iyo maantadan dhibaatada ka taagan marka dhibaatadaasi waxay ahayd wax general ah oo guud oo ka wada dhaxeeyo marka sidaas awgeed yaan la eegin hal dhinac hal la eego dhammaan ayaan leeyahay maantana sidoo kale waxaan idin leeyahay waxaan idin rajeynayaa farxad iyo rayn iyo horumar sida aad u gaarteen waxaan idin rajeynayaa in aad garataan Soomaaliya in ay hal tahay aanay ahayn labo oo aan Soomaaliya la kala qaybin karin ninkii isku dayay inuu kala qaybiyana aan ku guuleysan doonin maxaa yeelay Soomaaliya waa hal hadii aad degan tahay gobolada waqooyi ilaa iyo koonfureed ilaa iyo gobolada dhexeba Soomaaliya waa hal waxaan Ilaahay ka baryayaa in la soo celiyo dib Ilaahay u soo celiyo ammaankii horumarkii midnimadii iyo Soomaaliya weyn oo mar qura awood ku lahaata aanu gaarnoona sidoo kale xilligii la dhihi jiray Soomaaliya waa libaaxa geeska Afrika oo aan awood u lahayn in aanu hujuuno wadamada dariska oo ay naga cabsadaan marka waxaan idin rajeynayaa hadaatiin ummadda Soomaali galbeed la magac baxay Somaliland horumar barwaaqo bashbash iyo nabad iyo caano iyo inaad dib ugu soo noqotaan ummadii aad ka tirsanadeen Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.